wuxuu iibsaday doon qiimaheedu gaarayo 500 milyan oo dollar. wuxuu magaalada Paris ee dalka Faransiiska ka gatay qasri aad u weyn kaasoo qiimihiisu yahay 300 milyan oo dollar. wuxuu ka dambeeyay dilkii wariye Jamal Khashoggi ee 2018 lagu khaarijiyay dalka Turkiga. wuxuu jabsaday telefoonka Jeff Bezos oo ah ninka ugu lacagta badan dunida. haddaba waa kuma Mohammed bin Salman dhaxal sugaha Sacuudiga kaga boga muuqaalkan sooyaalka iyo sida uu u nool yahay 34 sano jirkan aadka ay u hadalhayaan warbaahinada caalamku. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. magaciisa oo dhammaystiran waa Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. wuxuu ku dhashay magaalada Riyadh taariikhdu markay ahayd 31 Agoosto 1985. waa wiilka lixaad ee boqor Salman bin Abdulaziz oo iyadiisu waxaa la yiraahdaa Fahda bint Fallaah bin Sultan Al Haslayn Al Ajami. wuxuu waxbarashadiisa guud ku qaatay magaalada Riyadh. muddadii uu waxbaranayay wuxuu helay koorsooyin iyo barnaamijyo badan oo khaas ah. wuxuu shahaadada koowaad ee sharciga ka qaatay jaamacadda Malik Saud. markii uu ka qalin jabiyay jaamacadda wuxuu aasaasay dhowr shirkad oo ganacsi. taasina waa inta uusan ku soo biirin shaqada dawladda. 10kii bishii Abriil 2007 Amiir Mohammed bin Salman waxaa loo magacaabay la taliye waqti buuxa ah ee golaha wasiirada Sacuudiga. balse shaqada wuxuu ka tagay December 16 2009. wuxuu la taliye gaar ah u noqday aabihii boqor Salman bin Abdulaziz oo markaasi amiir ka ahaa magaalada Riyadh. 2012 waxaa dhaxal sugaha Sacuudiga loo magacaabay Salman bin Abdulaziz kadib markii uu geeriyooday walaalkiisa Nayef bin Abdulaziz oo ahaa dhaxal sugaha rasmiga ah ee Sacuudiga. balse 3 sano kadib waxaa geeriyooday boqorkii Sacuudiga Abdullah bin Abdulaziz waxaana kursiga boqortooyada ku fadhiistay Salman bin Abdulaziz isagoo ay da'diisu tahay 79 sano. 23 Janaayo 2015 ayaa wareegto uu soo saaray boqor Salman bin Abdulaziz wuxuu wiilkiisa u magacaabay wasiirka difaaca iyo la taliyihiisa gaarka ah. isla sanadkaas 29 Abriil wuxuu boqor Salman bin Abdulaziz soo saaray wareegto boqornimo oo qeexaysa in Mohammed bin Salman loo xushay dhaxal sugaha Sacuudiga isla markaana uu yahay wasiirka gaashaandhigga iyo madaxa golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta. Mohammed bin Nayef ayaa ahaa dhaxal sugaha rasmiga ah ee Sacuudiga balse sida muuqata waxaa afka ciidda u daray boqor Salman iyo wiilkiisa Mohammed bin Salman. boqorka 84 sano jirka ah ee Sacuudigu wuxuu shaqadiisa inta ugu muhiimsaneed ku wareejiyay wiilkiisa sida aanu ka soo xiganay Bloomberg. dhaqaalaha Sacuudiga ayaa ah mid aad u sareeya wuxuuna inta badan ku tiirsan yahay ceelasha naftada. wadarta guud ee hantida boqortooyada Sacuudiga lama oga balse waxaa lagu qiyaasaa 1.4 trilyan oo dollar sida aanu ka soo xiganay ila warbaahineed oo Sacuudiga laga leeyahay. hantida boqortooyada ayaa sare u kacday 10kii sano aynu ka soo gudubnay waxaana aad u balaartay dakhliga laga helo shidaalka. shirkadda ugu weyn ee soo saarta shidaalka ee Sacuudiga waa shirkadda Aramco. Mohammed bin Salman sida uu xilka u qabtay waxa uu ku kacay arrimo waaweyn oo dhaleeceyn iyo cambaareynba uu kala kulmay. sida laga soo xigtay Al Jazeera tirada dilalka ee boqortooyada Sacuudiga ayaa kordhay. 133 qof ayaa la dilay 8 bilood ee ugu horeysay kadib markii Mohammed bin Salman uu noqday dhaxal sugaha Sacuudiga. wuxuu fasaxay dumarkii waddanka isagoo sheegay inay xor yihiin isla markaana ay wadan karaan gawaarida. wuxuu wajahay mowjad caalami ah xilligii dayrta ee 2018 kadib markii lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii wariye Jamal Khashoggi kaasoo lagu dhex dilay qonsuliyadda Sacuudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. bishii November 2018 CIA-da Mareykanka ayaa sheegtay in wariye Jamal Khashoggi lagu dilay amar uu bixiyay Mohammed bin Salman. hogaamiyaal badan ee caalamka ayaa cambaareeyay Mohammed bin Salman marka laga reebo Donald Trump oo isagu taageero u muujiyay amiirka sheegayna inaan lagu eedeyn karin arrinkaasi. Business Insider ayaa horay u qoray in Trump uu xiriir ganacsi oo qoto dheer la lahaa dawladda Sacuudiga in ka badan 20 sano. bishii Janaayo ee sanadkan 2020 waxaa Mohammed bin Salman lagu eedeeyay inuu jabsaday telefoonka gacanta ee madaxa shirkadda Amazon Mr. Jeff Bezos. qaramada midoobay ayaa ku baaqday baaritaan degdeg ah oo ay sameeyaan Mareykanka iyo mas'uuliyiinta kale ee ay qusayso arrinta Jeff Bezos ee ah telefoonkiisa la jabsaday. sida laga soo xigtay warbaahinta qaramada midoobay Bezos wuxuu siiyay Mohammed bin Salman nambarka telefoonkiisa
kadib markii ay labadoodu ka wada qayb galeen casho yar oo ay ku wada yeesheen Los Angeles bishii Abriil 2018. bil kadib Maxamed bin Salmaan ayaa la sheegay inuu fariin hakarisnimo ah u diray taleefanka Bezos isagoo xaday macluumaad badan oo ku jiray taleefanka. dowladda Sacuudiga ayaa beenisay dhammaan eedeymahaas waxa ayna ugu yeertay wax aanan macquul ahayn. Maxamed bin Salmaan wuxuu guursaday in adeertii Sara bintu Mashhuur bin Cabdilcaziis waxayna u dhashay 4 carruur ah. hantida Maxamed bin Salmaan ayaa ah mid aad u tiro badan sida uu daabacay website-ka ganacsiga ee lagu magacaabo Business Insider. wuxuu Maxamed bin Salmaan magaalada Paris ee dalka Faransiiska ka iibsaday guri aad u weyn oo qiimihiisu gaarayo $300 milyan. gurigan ayay majalada Fortune ugu yeertay guriga ugu qaalisan dunida. wuxuu iibsaday doon ama markab aad u weyn kaas oo qiimihiisu yahay $500 milyan. waxaa loo yaqaanaa markabkan Sirin. markabkan ayaa leh barkad lagu dabaasho, garoon diyaaradeed, goob lagu ciyaaro iyo masrax lagu fiirsado filmaanta. wuxuu kaloo leeyahay gawaari aad u tiro badan kuwaasoo ah gawaarida ugu casrisan dunida uguna raaxada badan sida Mercedes S-Class iyo James Lincoln Denali XL. Maxamed bin Salmaan ayaa si toos ah u noqon doona boqorka Sacuudiga marka uu geeriyoodo aabihii Salmaan bin Cabdilcaziis. waxaa intaa ku dhan muuqaalkii xiisaha badnaa ee aan idinkaga diyaarinay 34 sano jirkan warbaahinada caalamku aad ka u hadalhayaan. waxaan filayaa inaad wax badan ka ogaatay sooyaalka iyo sida uu u nool yahay Maxamed bin Salmaan. fadlan share dheh oo like saar muuqaalka, hana hilmaamin taabashada badhanka cas ee ku qoran tahay subscribe. intaa ku kulmi doona muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo.